ورحمة الله وبركاته dhammaantiin waa salaamantiin asxaabta waxaan baran doonaa sida loogu configuration loogu sameeyo routerkaaga aad haysato internetka sidaad u control lahayd iyo sidaad uga faa'iideysan lahayd iyo sida aad u ilaashan lahayd uga bedeli lahayd PIN-kaaga iyo username-ka adminka la socod wanaagsan dhammaantiin. marka hore waxaan galaynaa Google, waxaan qoraynaa 192.168.1.1 بعد كده كمان سيرنا وحين ويديني هذا باسورد روتر كان استعماله و تي بي لانك وحين ويديني باسورد marka originalkiisu waa admin. hadda baasaboorkan u jeedaan aniga geliyay oo ana ka bedelay oo kuwaan waan gashaday login baan leenahay. wireless baan tegaynaa kabacdi advance baan tegaynaa kabacdi wireless baan ku dhufanaynaa wireless setting. sidaad u jeedaan waxaa halkaa inaga muuqda network name iyo passwordkii. okay, magaca markaad bedelayso magacaad kala siin kabacdi waad qori passwordkaad usoo iman badali sidaa markaad tiraahdo kabacdi haddii aad hide ka dhigayso ood qarsanayso hide intaas baad sax saaraysaa. haddii aanad qarinaynin oo sidaasaad ku degeysanaysaa save baad leedahay save. routerku hadda saas ku bedelmay. ka magaciis bedelay waan gelinaynaa okay. esta capital bay ahayd saad ujeedaan u qaatay. sidaa iyo cashirka inoogu xigay insha allah waxaan ku baran doonaa